sugaano aqoon laga siyaadsado saldhigeedu yahay xamaar meel kastood ku sugan tahay sagaashan dhibic toddoba magahayrkiiskala soco saaxiibka yeelo idaacadda ciidamada qalabka sida بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan rabaa inaan dhageystayaasha iyo daawadayaasha ku xiran ee bogga warbaahinta ciidamada qalabka sida inaan u sheegno inaan dib u habeen ku sameynay raadiyaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ka soo galayay muujada 90.7 megahertz dib u habeen balaaran oo in muddo ku socotay oo dhinaca maqalka idaacadda ayaanu ku guuleysanay ilaahay mahadiis idaacadda haatan dib ay hawada ugu soo laabatay iyadoo maqalkeedii aad u wanaagsan yahay isla markaana laga dhageysanayo gudaha magaalada Muqdisho iyo daafaheeda waxa sidoo kale aan ku guuleysanay inaan balaarino idaacadda oo aan gaarsiino deegaanada maamulka Galmudug taasi oo markaasi ay gacan ka geysteen saraakiisha qaybta 12aad iyo wakiilka qaybta 12aad ee idaacadda ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waxaan haatan si toos ah ugu xirmanay radio galguduud oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug sidoo kale waxaan ku guuleysanay idaacadda Kismaayo in dadka ku dhaqan ay dhageystaan oo laga dhageysto raadiyaha Kismaayo taasi oo markaasi ay gacan naga siiyeen madaxda qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa haatan shaqo ay ku socotaa oo idaacadda ay gaari doontaa hadii Ilaahay raali uu ka dhigo qaybta 60aad ee magaalada Beedhabo sidoo kale waxa jira qorsho idaacaddu ay ku gaarayso deegaanada qaybta 27aad ee ka howlgasho iyadoo haatan aan ku xiranahay magaalada Buulo Burdo oo ay joogaan wakiilo wareedyo iyo sidoo kale magaalada Beledweyne dadaalo badan ayaa socdo waxaan kaga mahadcelinaynaa taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga oo arintaasi isku xil saaray sidii markaasi loo hormarin lahaa warbaahinta ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa dhageystayaasha iyo daawadayaasha ku xiran warbaahinta ciidamada in isbedel weyn ay dareemi doonaan iyadoo haatan ay dad badan la soo xiriireen noo sheegeen in maqalka idaacaddu si wanaagsan uu soo gaariyo sidoo kale dhinaca social media isbedel ayaa ka jira oo waxaan bedelnay qaabkii muuqaalada aan u sameyn jirnay oo mas'uuliyiinta iyo howlwadeenada idaacaddu ay isku xil saareen si markaasi dadka Soomaaliyeed aan howlihii aan u hayna oo si laba jibaarno isla markaana waxa qabtirno howlaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ay qabanayaan hadii ay noqon lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallada dalka guud ahaan uu ka wado dhismihiisa iyo horumarada kale uu ku talaabsanayo sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isna isbedel weyn haatan sameynaya sidoo kale ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo isna sidoo kale isbedel weyn laga dareemayo waayadan dambe iyo sidoo kale ciidanka sirdoonka qaabilsan maadaama idaacadda afarta ciidan afkeeda ay ku hadasho waxaan kaga mahadcelinaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guud Odwaa Yuusuf Raago oo mar walba ka warqabay idaacadda soona booqday xarunta idaacadda taasi oo uu ku dhiirigelinayay shaqaalaha idaacadda si ay u sii laba jibaaraan sidoo kale wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye isna waan kaga mahadcelinaynaa wada shaqeyntiisa iyo gacan siinta maadaama wasiirkeeni warfaafinta uu yahay guud ahaan cid kasta oo gacan siisa idaacadda ciidamada qalabka sida aad baan ugu mahadcelinaynaa 100% aad mahadsantiin dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena wixii taliye tusaalaana waan ka rajeynaynaa inay nala soo wadaagi doonaan sida haatan ay nala soo socodsiiyaan idaacad sugaano aqoon laga siyaadsado saldhigeedu yahay xamaar meel kastood ku sugan tahay 90.7 magahayrkiiskala soco saaxiibka yeelo idaacadda ciidamada qalabka sida idaacadda ciidamada qalabka sida